بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan isku dayey mowduuca cabdilqaadir doortay inaan wixii alla iga gaadhsiiyo ama aan ka awoodo inaan ka tilmaamo oo ku saabsiisan qasri اlamal aw اlisticdaadu liyowmi الraxiil, rajada adduunkaoo la soo gaabiyo ama se diyaargarow qofka muslimka ahi uu u diyaargaroobo maalinta aakhiro. waxaa aan u baahannahay runtii xaqaa'iq dunidan taalla inaynu si fiican u fahamno. ugu horayn, xaqiiqada qofka bini aadamka ah, adduunkan waa daaru mamar, waa meel socod lagu marayo. qofka bini aadamka ahi muddo kooban buu joogayaa, mana aha meel nagaadiya. sida ogeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka bukhaari ku yaalla waxa uu ku tilmaamaya xaqiiqada qofka insaanka ah. waxauu nebigu ku tilmaamay khad buu jeexay, square yar buu sameeyey. markuu square afargeesood yar sameeyey ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam xariijin ka dhex saaray. xariijinta intii squareka dhexdeeda ku jirtay buu xariiqo yaryar dhinacyadeeda ka jeexay. dabeetna nebigu wuxuu idhi kani waa bini aadamkii, ajashiisu sidan bay ugu wareegsan tahay, yacnii laabud inuu dhimanayo, geeridu dhan walba way ka xigtaa oo wuu geeriyoon doonaa. xariiqdan dheeraa arkaysaanee ka baxday dhaabsisan bokoskiira ee uu nebigu sawiray dabadda uga baxdayna waa amalkiisa, raje iyo yididiilo uu qofkan bini aadamka qabo iyo bilaankiisa adduuniya waxa uu ka fekerayo. xariijimahan yaryaree hareeraha ka xigana waa mashaakil dunya, acraadiha, waa dhibaatada adduun, oo haddaad tan ka baxdo tan baa ku haleelaysa, haddaad ka maqaxdo tan baa ku haleelaysa. si kale haddaynu u tilmaamno waxa weyaan dunidan waxaa laynoo keenay in layna itixaamoba. waxaynu u joognaa liyabluwakum ayukum axsanu camala, in layna itixaamo. waxay culammadu yidhaahdaan meel laysku itixaamana waa qaabkii ugu fiicnaa. qaab bini aadam imtixaan loo geliyo waa the best bay yidhaahdaan, qofka bini aadamkaa loo itixaamo. haddaba insaanku adduunka kan amalkan tirada badan iyo rajadan tirada badanna uu isa siiyo, waxay culammadu yidhahdaan laba sababood baa inta badan keena, oo ah aljahlu wa xubu dunya. idan xaqiiqada koowaad waa inaynu adduunka u joogno in layna itixaamo. xaqiiqada labaad aynu wada rumaysannayna waxa weeyaan geeri, in dadku dhammaantii geeriyoon doono. waa xaqiiqo gaal iyo muslimba la qirsan yahay. waxaa kugu filan adiga dadkii aad ku abtirsanaysay ama ku dhalay waa kaa horeeya mostly, adiguna yaron dawey, adna waa sallaankaad saaran tahay, waa daba socotaa. si awgeed baa ilaahay subxaanah wa tacaala nebigiisii wuxuu ku leeyey innaka mayitun wa innahum mayituun baa ilaahay yidhi. adigu mid geeriyoonaya baa tahay, meyit baa tahay baa ilaahay ku tilmaamay nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. wa innahum mayituun, iyaguna waa geeriyoonayaan baa ilaahay yidhi. kullu man calayha faan, dunida waxa kor saaran oo dhammi waa dhammaanayaan baa ilaahay ku tilmaamaya subxaanah wa tacaala. wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhuld afa in mitta fahum alkhaaliduun. adiga hortaabaa ilaahay leeyahay bini aadam aan waaris siinay ma jiro. gaaladaa waxay odhan jireen wuu dhiman doonaa, raybal manuun bayn la sugaynaa, waa maalmo inugu qaylinayaa, dani wilivas waa geeriyoon doonaa. ilaahay wuxuu ku tilmaamay subxaanah wa tacaala adiga hortaaba bini aadam waaray ma jiro. afa in mitta fahum alkhaaliduun baa ilahay yidhi, oo adigu haddaad dhimato ma yagaa kaa hadhaya, ma yagaa waaraya baa ilahay leeyay subxaanah wa tacaala.
idan adduunkan iyo dadka saaran oo dhammi xaqiiqada labaad aynu ognay waxa weeye in la wada geeriyoon doono. xaqiiqada saddexaad aan ognahayna waxa weeyaan daarilmamar, waddadan safarka markaynu dhaafno inaynu ilaahay la kulmi doonno, xisaabna waajihi doonno. ilaahay intaad la kulanto subxaana wa tacaala liqaa'a allah iyo xisaab iyo janniya naari inay ka dambeeyaan. sawgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy qul ina almowta aladii tafiruuna minhu fainahu mulaaqiikum ثuma turadduuna ilى caalimi اlغaybi wالشhahaadة fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun. geeridanaa ka carcararaysaan baa ilaahay leeyahy. cid walba inaga midaba geerida diyaaru maaha, waa ka baxsanaynaa. marka wadnuu ku xanuuna, madaxu ku xanuuna, dhakhtarmee iyo yaa wax tabiiba iyo yaa nafta igu qabta weeyaan, waxaynu la wada ordaynaa. cidina ma rabto inay hore uga baxdo. ilaahay wuxuu leeyahy geeridanaa ka ordaysaan fainahu mulaaqiikum, waa idinla kulmaysaa. mahma aad cararto waa kula kulmaysaa. ثuma turadduuna ilىa caalimi اlغaybi wالشhahaadة, dabeetana waxaa laydiin celinayaa baa alle leeyahy subxaana wa tacaala, rabbi og waxa muuqda iyo waxa qarsoonba. waxaad qarsatay, waxaad ku fakertay, waxaad keligaa samaysay, wax kasta oo qarsoon, caalimi اlغaybi wالشhahaadة, ilaah wax walba og baa u tegaysaan. kadibna fayunabi'ukum bima kuntum tacmaluun baa ilaahay yidhi. wuxuu idinka warramayaa markaa wixii aad samayn jirteen oo dhan. waa xaqiiqada saddexaad. markaa dunidan inaynu imtixaan u joognaa waa kow, amalkeennaasi ha iska dheeraado. laba waa inaynu geeriyoonayno, qof waliba geeri la kulmaya. saddex waxaynu leenahay waa inaynu ilaahay la kulmayno subxaanahu wa tacaala, oo xisaab iyo janno iyo naari dambayso. kullu nafsin daa'iqaة اlmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljanna faqad faaz wama alxayaaةu اddunya ila mataacu اlguruur. naf waliba waa go'aysaa baa ilaahay yidhi, waxaana laydiin dhammaystiri doonaa maalinta qiyaame wixii aad shaqaysateen. adduunka waa laga yaabaa camal saalixa intaad samayso haddana inaad kadeedna iskala kulanto. waa dhacdaa adigoo acmaal wanaagsan samaynaya in imtixaanku kugu sii kordho. ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala, waxaad shaqaysatay wax kasta ha ahaatee kaa lumi maysa baa ilaahay leeyahy. shaqadaada oo dhammaystiran goobta lagu helaya adduunka maaha. inamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. naf waliba wixii ay galbatay ama ay shaqaysatay maalinta aakhiraba ilaahay le ayuu u oofinaya, u dhammaystiraya. haddaba maalintaas baa ilaahay yidhi faman zuxzixa can الnaari waudkhila اljannata faqad faaz. maalintaa ninkaa naar laga fogeeyo ee janno la geeya, warkaasunbaa liibaanay baa ilaahay yidhi. qur-aanka ereyga fawz iyo faa'iziin iyo fawz اlkabiir iyo fawz اlcadiim iyo fawz اlmubiin baa ku soo arooray. intaba aakhiray ku saabsan yahin. wax adduunkoo fawz la ydhaha qur-aanku ma qorin. ereyga fawz iyo faa'iz iyo faa'iziin iyo fawz اlcadiim iyo dalika alfawz اlkabiir, alfawz اlmubiin, intaba qur-aanka waa ku soo aroortay. xawaalay 16 jeer bay fawz alcadiimku ku soo arooray iyo kabiirku. intaba aakhira ilaahay kaga warramaya. yacni adduunku kaannamaa wax weynoo la tilmaamaba aanu ahayn. ama guulayso ama guul darrayso, its matter of days. waa maalmo yar oo aad ilaabaysa weliba. waxay uga dhigan tahay adduunku qofka bini aadamkaa, maanta waxaad cuntay iminka ma dhadhamin kartaa? cunnadu intay qiimo leeday, intay afka ku jirto. cunnadu hadday afka dhaafto dhadhan ma leh. dhadhanku waa intay afka ku jirto. addunya kullaha waa caynka. waxaad soo martay oo nimcoo dhan haddii iminka lagu weydiiyo, it has no meaning. dhadhankuuma leh, qiimo ma leh. waxaad dambuunbaad siladayba mala ka fiican, wixii hore qiimo kuuma samaynayo. saa daraaddeed baa ilaahay wuxuu leeyay war meesha guushu jirtaa ama guuldarradu jirtaa waa aakhiro. wama alxayaaةu اdunya ilaa mataacu اlguruur baa ilaahay aayadda ku gebagabaynaya. oo nolosha adduunya miyay tahayba bidhbidh yaroo lagu kadsoomo? waa waxuu qofka bini aadamka ku kadsoomo ee maaha wax sii waaraya. xaqiiqada afraad markaasi waxay tahay, maadaama adduunkani daaru mamar uu yahaynu ka tegayno,
inaynu in badan yididiiladan fog soo gaabinno, geerida in badan xasuusanno, u diyaar garowno. ilahi wuxuu leey ya ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah xaqa tuqaati walaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun. wardada uu ilaahay ka cabsada, cabsida uu ilaahay xaq u leeyey, weyneeya weynaynta alle uu xaq u leeyey. ha geeriyoonnina baa la yidhi idinku aan muslim ahayn. idinku aan muslim ahayn ha geeriyoonnina macnaheedu waa maxay? qof inaga mida oo og wakhtigu dhimanaya ma jiro. no one cid garanaysaa goorta ay dhimanaysaa ma jirto. haddaba waxaa la yidhi ha geeriyoonnin adigoo aan mu'min ahayn. taa macnaheedu waa maxay? wakhti kasta diyaar aha weeyaan. every minute oo noloshaada ka mid ah waa inaad diyaar u ahaataa geeri. garan maysid ma markaad baxdaabaa wadnu iskaa taagi, ma gaadhaa ku mari, ma maalmaad sii noolaan doonta. walidaalik buu nebigu calayh salaatu wasalaam ducooyinkuu ina baray. habeenkii markuu seexde uu soo tooso, alxamdu lilaahi aladii axyaanii, wuxuu odhan jiray ilaahay baa mahadle in nooleeyey geeri dabadeed. jaanis in la siiyey buu u arkayey, maadaama waagii uu bariyey oo uu soo kacay inuu jaanis haysta buu arkayey. ilaahay wuxuu ina leeyahy markaa war ha geeriyoonnina idinkoo aan muslim ahayn. dadka inta ugu badan leh, bini aadamka intiisa badani waa haafil. khaflada waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd inaad xasuusato asaad moogan tahay wax ku ahaa muhim, waxa la ahaa inaad priority siiso, horu mariso, oo aad dib marisay. khafladu waa noocan un. idan ilaahay wuxuu leey iqtaraba linnaasi xisaabuhum wa hum fii khaflatin mucriduun. dadka waxa ku soo dhowaatay baa ilaahay leeyahy xisaabtoodii. wakhtigii la xisaabinayay bini aadamku wuu soo dhowaaday, laakiin goormuu u imanaya? wahum fii khaflatin mucriduun, iyagoo khaflo ku jiro sii jeeda baa ilaahay leeyahy. bale ilahay wuxuu tilmaamaya iyagoo allaahiyatan quluubuhum, kuwa qalbiyadoodu jeedaan. saa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku leeyahy nebiga calayh salaatu wasalaam, waandirhum yowma alxasra. dadka waxaad uga digtaa maalinta murugada. alxasra ay shiddatu nidaama, maalinta murugadu tiro badan tahay uga dig bini aadamka. id qudiya alamru wahum fii khaflatin wahum laa yu'minuun. ayuha alaxiba, su-aasha isweydiinta le waxay tahay see loo diyaar garoobaa marka? haddaynu leenahay xaqaa'iqdani waa xaqaa'iq dhaba oo qofka muslimkii uu caqiidaysan yahy oo noloshiisa qasab ay tahay inay soo marto, waxaynu isweydiinaynaa in la diyaar garoobo. see loo diyaar garoobaa? waxaynu u baahannahay horta, ilaahay wuxuu leeyahay amalkan idinla wakhtigan idinla dheeri waa wax gaaban. isagoo gaalada la hadlaya ilaahay wuxuu yidhi innahum yarawnahu baciidan wa naraahu qariiban baa ilahay yidhi. iyagu wax fog bay u arkayaan, beriga la isxisaabi doono iyo beriga aakhire la gaadho. laakiin ilaahay wuxuu leeyahy wanaraahu qariiba, mid dhow baanu annagu u aragnaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. iyadoo gaala ilaahay ka warramayo fii suurati alxijri baa ilaahay wuxuu leeyahy alif laam ra tilka aayaatu lkitaabi ilaahay wuxuu tilmaamay tilka aayaatu اlkitaab wa qur'aanin mubiin rubamaa yawaddu aladiina kafaruu low kaanuu muslimiin darhum ya'kuluu wayatamatacuu wayulhihim alamalu fasawfa yaclamuun. kuwa gaaleed baa ilaahay yidhi ee adduunkan isa siiyey, mar baa dhici doonta ay tamaniyi doonaan ina marmay muslim ahaadaan. darhum baa ilahay yidhi ka tag, ya'kuluu wayatamatacuu, ha cunaan oo ha iska bidhbidhsadaan baa ilaahay yidhi. wayulhihim alamal, ha mashquuliyo rajadan dheere ay isgeliyeen. fasawfa yaclamuun, wakhti dambay garan doonaan baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala. waayo cimriga in kasta oo lagu siiyo, waan wada jecellay inaynu wakhti dheer sii joogno, laakiin in kastoo lagu siiyaa waa wax yar. in kasta oo lagu siiyaa 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 waa wax yaruun whatsoever aad haysato. ilaahay baa wuxuu leeyahy afara'ayta in matacnaahum siniin ثuma jaءahum ma kaanuu yuucaduun
ma aghnaa canhum ma kaanuu yumatacuun baa ilaahay yidhi afara'ayta in matacnaahum siniin bal ka warran baa ilahay yidhi kuwan haddaannu muddo u raaxayno sannada haddii loo nimceeyo laakiin kadib uu u yimaado wixii loo yaboohay waxba kama tarin wixii ay soo bidhbidhsadeen baa ilaahay leeyahy idan whatsoever aad nooshahay intuu doono ha leekaado maadaama uu gebagaboobayo waa berrito qofka bini aadamka ahi in kastoo uu soo jiray inuu wax yar joogay unbuu haystaa wax yar inuu joogay unbuu haystaa haddaba ilahay wuxuu ina leeyahay alam yaأni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri اllahi wma nazla min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu اlkitaaba min qabl faطaala calayhim اlamad faqasat quluubuhum wakaiiru minhum faasiquun war kuwa mu'miniinta ah miyaan wakhtigoodu gaadhin baa la leeyahy miyaanay u cuntamin miyaanay in qalbigoodu uu ilaahay dartii u khushuucay iyo dikriga alle uu ku khushuucay iyo wacdiga iyo diinta iyo qur'aanka oo aanay la mid noqonin kuwii iyaga ka horreeyey ahlu kitaabka ahaa ee wakhtigu intuu dheeraaday qalbiyadu engegeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba adduunka bidhbidhsigiisa laynagama mancinin laakiin waxaa laynaga reebay inaynu keligii moodno waxaa laynaga reebay inuu noqdo nolosheenna number oneka waxa koowaad ee aad ballaangaraynayso haddaad iminka safar gelayso safar aanad ballaangarayn inta badan ma geshid socanka maaha xataa haddaad one week usbuuc haddaad maqnaanayso waad hodheelkaad degi doonto ama xaafaddaad ku degi doonto iyo ciddoo dhan waad la sii hadasha adigoo ka cabsanaya toddobaadka inaad meel xun ku dhacdo waa toddobaad wuxuu laakiin toddobaadkaasi waa inuu ballaankiisa aad hubisay oo ku celcelisay oo double check ku samaysay in buukinkaagii dayaaradda iyo kii hodheelku uu fiican yahay gurigii iyo meeshii aad degaysay inay secure tahay waa one week ka warran noloshaadoo dhan meeshaad degi doonto saaad u ballaangaraysa waad safraysaa waddadaanad ku jirtaa noloshaada oo dhan meesha aad degi doonto si aad u ballaangaraysa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu leeyahy bini aadamku laa yazaalu qalbu اlkabiiri shaaban fi اثnayn fii xub اdunya wa tuuli اlamal qofka weyn qalbigiisu qayb baa jirta aanu ka gaboobin buu nebigu ku tilmaamay uu dhallinyaro ka yihi meel baa jirta dadkao dhammi dhallinyaro ka wadayay aan ninnaba gabagu ka haleelin waa xaggee waa adduunye jacaylka iyo amalka rajada badan labadaa cid ka gabowday ma jirto ayuu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam labadaa qalbiga bini aadamka oo dhammi dhallinyaru ka yahay buu nebigu sheegay ilaahay wuxuu ina leeyahy afaman wacadnaahu wacdan xasana fahuwa laaqiih kaman matacnaahu mataaca alxayaati اddunya ثuma huwa yowma alqiyaamati min almuxdariin war ninkaannu yabooh fiican u yaboohnay ee la kulmi doona qofkaannu janno u sheegnay ee u dadaalay camalkeed la yimi ee la kulmi doona warkaasi miyuu la mid yahay buu alle leeyahy subxaana wa tacaala kii aannu noloshan waxoogaa ugu raaxaynay dabeetana qiyaamaha kuwa la soo xaadiriye jahannamo ka mid noqonaya war labadaasi miyay isku mid yihiin baan ayaa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ayuha alaxiba halkan waxayna keenay blaaninkaynu adduunkeenna u samaynaynay markaynu halkan u soo soconnay marnaba kuma jirin qorshuhu blaanka aakhira talow maxay xaggay kaga dhacaysaa tirada kuma jirin waa ayaamaha hadhee nolosha saad u survive lahayd baad halkan ku timi waxaa ku habboon haddaba inaynu mar labaad ballaangarayno aakhiro xaggaynu qabanaynaa qofka bini aadamka ee gambaling inaad iskaga jirta maaha waa ilaahay meeshuu doonuu ii kaxaynaya ilaahay meeshaad shaqaysataa buu kuu kaxaynaya bimaa aslaftum baa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya kuwuu janno geeyey iyo kuwuu maxay naar geeyeyba faman yacmal midqaala daratin khayran yara waman yacmal midqaala dara dara in leeg baa la yidhi oo shara iyo khayr ciddii samaysatay waa la kulmaya bini aadamku laakiin degdegtuu jecel yihi
nicmada degdegta ta ah waxaa haddii iminka lagu yidhaahdo bishiiba ma qaadanaysaa $2,000 mise sanadkii baa lagu siiyaa bishiiba $3,000 lagu xisaabiyaa waar sanad iyo sugayaad odhanaysaa labadaydaan u qaadanaya yani bini aadamku yuxibuuna alcaajila degdegtuu jeceliyey waxaan horeeyuu jeceliyey adduunkuna waa sidaa aakhiro iyo jannada la sheegayo hadda jannada waxaa la yidhi universkan aynu aragnoo dhan bay leegtay qof kasta booskiisu baa la yidhi carduha asamaawaatu waalardu baa lagu tilmaamaya maaha carduha london iyo inta ku xeerantoona maaha haddii lagu yidhaahdo london iyo inta ku xeeran baad helaysaa intaad dhididi lahayd haddii lagu yidhahdo london iyo inta ku xeeran baad helaysaa intaad dhididi lahayd intaad dadaali lahayd si hadduu rabu samaawaatku leeyahay universkan kuu muuqdaba in leeg baad helaysaa keliga intay u baahantahay inaad u dhidido intay u baahantahay inaad u dadaasho weliba helisteedoo qura maaha haddaad iyada weydana mid naaro ka daran baad gelaysaa intaad iyada weydo cidlo dhici maysid ee badiilkeedaad helaysayoo naara idan bini aadamku degdegtuu jecel yahay waxaa si habboon inaynu aakhiro tirada ku darro ilaahay wuxuu leeyahy man kaana yuriidu alxayaaةa addunya waziinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ciddan adduunka doonaysa man kaana yuriid alxayaaةa addunya waziinataha nolosha adduun iyo dhalaalkeeda cidda doonaysa nuwafi ilayhim acmaalahum baa ilahay yidhi wixi ay shaqaysteen waa u oofinaynaa ka dafiri mayna baa ilaahay leeyihi haddaad adduunye raadis tahay ood xoogga iyo caqliga iyo cilmigaba isugu geyso si aad adduunye u heli lahayd wixii aad gashatay waad helaysaa baa ilaahay ku leeyahy wahum fiiha laa yubkhasuun weliba wax baksiyana cidi kugu samayn mayso wixii aad shaqaysatay laakiin dhanka kale ilaahay muxuu yidhi ulaa'ika aladiina laysa lahum fi اlآakhiraةi ila الnaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaaطilu ma kaanuu yacmaluun kuwan balaankoodoo dhamme adduunka yahay adduunka waan ku siinayaa baa ilahay yidhi waxay ifort gashadaan caqli xoog lacag hanti maskax wixii aad gelisay midhaheeda waad helaysaa adduunka intaad joogto laakiin ilaahay muxuu leeyahy ulaa'ika laysa lahum fi اlآakhiraةi ila الnaar laakiin kuwaasi ha ku tala galaan aakhiro meelaan naar ahayn ma laha baa ilaahay yidhi waxabita maa sanacuu waxay sameeyeenna waa buray wabaaطilun maa kaanuu yacmaluun wax ka soo qaad ma lahayn wixii ay wadeen oo dhan baa ilaahay leeyahy aakhiro umay diyaar garoobin ifort iyo xoog iyo caqli iyo lacagtoona may gelinin innagu waxaynu aragnaa haddii layna idhaahdo aakhiro waxgeli wixii dee uun aad istileeday waad ka maarantay unbaad xagga aakhira u dirtaa socankaa maaha haddii ajar lagu yidhaahdo lacag ku bixi inta ugu yar baad ku bixin laakiin haddii lagu yidhahdo dhulalkanoo laga faa'iidayaa jiriya meesha tan dayniya amaah iyo waxaad sugaysaba maximumka aad awooddaa baad gelinaysaa waayo tan baynu rumaysannay realitiga kaasiya dadkii ta kala rumaysanaa ee dhab u rumaysanaa iyaday investgaraynayeen marka lagu yidhaahdo nebigaa yidhi calayh isalaatu wasalaam waxaa bixiyo abibakar baa wuxuu lahaaba keenay he was going to investment buu rabay inuu sameeyo laakiin meeshuu rumaysnaa buu investgaraynayey marka la yidhaha cumar baa intuu laba xool isuu qabiye keenayey meeshuu rumaysnaa buu investgaraynayey innaguna halkaynu rumaysannayn dee investgaraynaa cid waliba waxa uu rumaysan yahay ayuu xoog gelinaya oo caqli gelinaya oo lacag gelinaya oo qorshaynaya oo ku dadaalaya daba ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu ina leeyahay war mataacu dunya ha ku mashquulina adduunkan iyuu kuu noqonin ka koowaad ee aad prioritiskaaga number oneka yuu noqonin baa ilahay leeyahy subxaanah wa tacaala qadiyadda labaad ee culammadu ay yidhaahdaan masaladan dadka way dhaafisayna waxa weeyaan waa masalat اljahli bay yidhahdeen jahliga maxaa looga jeedaa waxay yidhaahdaan xaqiiqat اlmowt oo qofku isilowsiye ama aanu garanayn ama se bay leeyihin wuxuu jahli ka yahay maa cinda allahi min khazaa'in waxa alle nimco uu qur-aankiisa ku sifeeyey qur-aanka haddaad furto qur-aanku akhriya adduunba wuu ka warramayaa wax allaaliya wixii bini aadamka dani ugu jirto wuu ka warramayaa maca daalik haddaad kala furto waa adagtay beyj qur-aanka ka mida ama laba beyjoo iska soo horjeedo qur-aan ka mida inaad janniya neer ka weydaa waa adagtay waayo intaasoo jeer loogu soo celiyey mar kastaba
qur-aanku waxa ugu badan uu ka warramaa waa laba masalo qadiyatu tawxiid ilaahay subxaanah wa tacaala jiritaankiisa iyo sifaadkiisa iyo weynidiisa iyo cabsidiisa beyjaanay ku qorrayni ma jirto qur-aan ka mid a qadiyadda labaad ee ugu weyne qur-aanku uu ka warramaa waxa weeyaan waa masalada aakhiro janno iyo naar beyj ka mida qur-aanku aad ka waayeysaa inaanu jirin bay u badantay haddaad musxafka unsaa u kala rogto waad arkaysaa maxaa ilaahay mudnaanta intaa leegu siiyey ee intaa uga warramay ee intaa ugu celceliyey waxaa loogu celcelinayaa in jahligeenna la faydo in garaadkeenna kor loo qaado ayuha alaxiba nebiga calayhi salaatu wasalaam cumar u soo galay isagoo xasiir yar salli isagoo ku jiifa oo salligii dhinaca kaga sawirmay carabtu wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam dharka caadiga la qaadan jiray wuxuu u badnaa labadeenni go' soomaalidu xidhan jirtay dabaqada koraysaa qamiiska lahaan jirtay laakiin dadku bablik ah inta ugu badan leh ridaa iyo izaar bay sidan jireen dadka badhna ridaagaba may heli jireen saxaabada in badanoo ka mid izaar quray haysteen xataa qaar baa izaarka isaga iyo islaantiisa uu ka dhexeeyey oo aanay islaantu salaadda sii tukan karaynin inuu soo noqdo mooyaane intuu masaajid ka yimaado u go'a siiyo oo ay markaas ku duuduubto salaadda tukata mooyaane haddana noloshaasay u arkayeen oo satisfied ku ahaayeen innagu dee waxaas iska daaya haddii in yar ay baashu isdhinto majaaca la iclaaniyaa oo aana la soo gaadhada innaga inugu badan laakiin saxaabada iyo dadka kaniisaan bay u noolayeen waayo tan baanay wax weyn u arkayn tan baanay u arkayn in wax ka maqan yihiin saa daraaddeed nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu salli ku seexday ayaa salligii jidhkiisa ku sawirmay salligan baadiyaha iyo dhulkan lagu seexan jiray marka aad ku jiifsatay aan marayo waxba kaa xigin aad soo kacdo xariijimihii baa wuxuu ku sawirmayaan jidhkaaga ayaa jidhkii ku sawirmay cumar baa wuxuu yidhi yaa rasuula allahi low ittakhadta furaashan awhara min haada furaash yar oo xaleef yar yacni oo kan ka roon maad dhigatid buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam cumar wuu u jawaabay waxaanu ugu jawaabay maalii waliddunya maalii waliddunya anigii adduun maxaana kala galay buu ku yidhi ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye anigi iyo adduunku inaanan isku ahayn buu nebigu yidhi nin safar ah oo geed hadhsaday mahalii wamahalu dunya ila karaakibin saara fii yowmin saa'ifin faاstadalla taxta shajaratin saacatan min nahaarin uma raaxa wa tarakaha aniga iyo adduun iskuma nihin buu nebigu ku leeyay alayh salaatu wasalaam nin safarah oo geed hadhsaday oo saacad ku nastoo dabeetana ka tegay intuu ka fakerayo markaad safartay haddaad istiraahda geed hadhsa maxaad ka fekertaa qofka caadiga normal u fakeray wuxuu ka fekeraa dhagxanta iyo iska kala yar riixriixo aad meesha aad yaro fadhiisatay ama jiifsatay ma ka fekertaa guri ka dhiso qoladan imka cusub ee caqligan adduunku ahaayo boqorrada qasri baa looga sii dhisaa sanadkii uu maalin seexdo waa caqliga adduunka dadka rumaysan laakiin bini aadamka caadigii markuu normal u fakerayo ka ugu fiicani waa ka taambuug yar ama dallad yar dhigta oo hoos hadhsada waayo waxaad rumaysan tahay meeshan meelaad wakhti badan ku sii bixinaysa inaan ahayn saa daraaddeed inaad hore fududaatida hore uga tegtid nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyay adduunkan dhammaantii aniga agtayda saa sukaye waa meel aan ka sii socdo maadaama aan ka sii socdona furaashkeedu waxba ii kordhin maayo furaashkeedu waxba iina kordhin maayo innagana guri yaroo cidhiidhiyaan ku jiraa buu leeya oo waa imisa dee waa laba qoloo mid anigu seexday iyo mid islaamtu seexata iyo mid yaroo fadhiya iyo mid yaroo intaasaa ku yar nebi maxamedna gurigiisu calayhi salaatu wasalaam qolka markuu waa wuxuba qol hal qol wax walba isagaa ah kijo iyo fadhi iyo meel la seexda iyo waxaba waa qolkan weliba waa qol marka qof is idhaahda tuko ka kale meeluu seexda aanay bannaanayn caaisha waxay lahayd markuu salaadda habeenkii u kaco cagahan meesha ku kala yaro fidsadaa dabeetana markuu damco inuu sujuudayo u qanshiidhiya markaasaan cagaa ka laabtaa waa qol aan laba qof midna inuu seexdo midna inuu tukado aan gaadhsiisnayn qiyaas haddana nolosha wuxuu arkayay inuu nolol raaxale ku jiro umuu arkaya in nolol uu ka cawdo ama dhib ku ah ama culays ku ah waayo wuxuu arkayay meesha tani inay tahay meeluu ku marayo maxay
safaruu ku marayo wuxuu arkayey inuu u socdo meeshii rasmiga ahayde uu qofku hadhsan lahaa. sidaa awgeed ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabi dhallinyaro abuu garabka qabtay. maaha nin weyn oo odaya, waa nin dhallinyaro imika dunidu cusubtay xagga. dabeetana intuu garabka qabtuu nebigu wuxuu ku yidhi kun fi اdunyaa kaannaka gariib aw caabir sabiil. waa cabdillahi bni cumar. kun fi dunya, adduunkan aad joogta waxaad ku ahaataa buu yidhi sidii nin gariibah ama nin jid ka gudbaya. meel aad degantahay ha ka dhiganin baa wuu tilmaamaya nebigu calayh salaatu wasalaam. inagu haddaad nin dhallinyaro ah la talinaysa maxaad odhan lahayd? waar xoogso nin noqo oo daara dhiso jaamacada ka baxa. inaga taladeenna koowaad dee waa tanbaynu ilan rumaysannaye. taladeenna koowaad waxay u jeeddaa tan sidii wax looga noqon lahaa. nebiguna calayhi salaatu wasalaam cabdillaahi ibnu cumar kaasaa ka soo horbaxay. markaasaa layidhi waa nacan karo. markaasuu yidhi nicma arajulu low sallaa bileyl. nin buu u fiicnaan lahaa hadduu habeenkiina salaadda ku daro. yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam mar kasta uu wax tilmaamayo saxaabada dhallinyarada waxa ugu badanee uu tilmaamaya waa maxay? waa aakhiro. cabdillaahi bnu cumar wuu qaatay waanadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. dabeetana saxaabada ama dadka kale markuu isna wuxu sheegayo xadiidkan markuu sheego wuxuu odhan jiray idaa amsayta falaa tantadir الصabaax. haddaad galabaysato waaga ha sugin, hays odhanin berrina waad noolaanaysaa. ee ku talagal caawa nin dunida ka tegaya waxaad kaga tegi lahayd samee. waidaa asbaxta falaa tantadir اlmasaa. haddaad waa bariisatana galabta ha sugin. wakhud min sixatika limaradik wa min xayaatika limowtik. waxaad u qaadataa caafimaadkaaga uga sii sahay qaado bukaankaaga. yacnii intaad caafimaad qabto isku day inaad cibaadadaada badsato, waayo markaad xanuunsato tamartaa ku gabaysa. intaad dhallinyarada tay isku day inaad cibaadada badsato, waayo markaad gabowdo itaalkaa kuu run sheegaya. noloshaadana waxaad u sii qaadataa buu odhan jiray aakhiradaada. yacnii aakhiro ayaa taargad dadkan u wada ahayd. sida awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam saynu u diyaar garoobi lahayn in badan buu tilmaamay. waxaa ka mid ah axaadiistu ku tilmaamaya. insha allah axaadiistan waa wada saxiix, uma baahni markaa inaan takhriijiyo ama sheego meelihii laga soo qaatay. waa xadiid aan saxiix ama xasan hayn sheegi maayo insha allah. nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam shan horteed ka haniimayso. haniimadu soo maaha waxa aad is leedahay yay ku dhaafin. 5 jaanis ka haniimaysa buu nebigu leeyay intaanay 5 kale iman. intaad dhallinyarada tahay, dhallinyarada waxaa loo jeedaa intaad xoogga tahay ka haniimayso intaanad gaboobin. shabaabaka qabla haramik, dhallinyaro intaad tahay aanad gaboobin. wa sixatika qabla saqamik, intaad caafimaad qabto ee aanad bukoonin. wa khinaaka qabla faqrik, intaad wax haysato intaanay ku dhaafin. xoolaha adduunku ama iyagaa kaa tegaya ama adaa ka tegaya. either of the two. inta adiga aad isticmaalaysaa waa in yar. weligaaba shaqee ama 3 shifti gal ama 2 shifti gal ama waxaad doonto gal. waxaad adigu isticmaashaa wax yarun weeyaan. waxa kale ama way kaa tegi oo mashaakil kalaa dhici, ama adaa ka tegi intaad meel ku ururiso. aakhirana su-aashooda kaa horaysa. intaad gurye ka sii dhisto iyo daariya wax ka sii dhigto ayaad dhaafi doontaa, dabeetana su-aashooda kaa horaysa. marka war intaad haniga tee wax haysato ka faa'iidaysa buu nebigu leeyay intaanad faqrinin. wa firaaqaka qabla shaql, intaad firaaqadatay ka faa'iidayso ee aanad mashquulin. dunya alyowm, maanta adduunkaynu joogno firaaqadu xanuunnaday ka mid tahy. xaggaan wakhtigaa ku dilaa buu qofku isweydiinaya. waa cimrigaaga qayb ka mid o ad leedahay xaggaan ku saydhaa. ka warran qof xoolihiisa leh intan xaggaan iskaga saydhaa ma rabe eh. haniima waxa ugu weyne aad haysato, kabitaalkaaga ugu weyni, rasamaalkaaga rasmiga ahay waa cimriga. inta sannadoodee ilaahay ku siiya inaad dunidan ka shaqaysato ayaa raasamaalkaaga rasmiga ah. haddaad kaa waxaad ku samayso markaad garan weydo raadisa meelaad ku khasaaraysa ka warran. xaggaan u sheeko tagaa, xaggaan wakhtiga ku soo dilaa, xaggaan ku soo jeedaa. waa wakhtigaagii aad rabto inaad lumiso. nebi maxamedna wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam war mashquulkaaga intaanad mashquul gelin firaaqadaada ka faa'iidayso. wa xayaatika qabla mowtik,
inta aad nooshahay ka faa'iidayso haddaad geeriyooto jaanisku waa dhammaadaya ayuha alaxiba cimri dherarkan iyo yididiiladan badani tuulu اlamal min kaydi الshayطaan waa xabaa'isha uu dhigto shayطaanku waxa uu ku ugaadhsado iyo wasaawistiisa weeyaan waa wuxuu nebi aadam jannada kaga saaray qaala yaa aadamu hal adulluka calىa shajaraةi اlkhuldi wa mulkin laa yabla nebi aadam muxuu ku yidhi geedda waaritaanka iyo mulki aan dhammaanayn ma ku tusiyaa amal buu geliyey qur-aankana ilaahay wuxuu ku tilmaamaya ina aladiina اrtadw calى adbaarihim min bacdi ma tabayana lahum اlhuda الshayطaanu sawala lahum waamlaa lahum baa ilaah yidhi ina aladiina اrtaduu kuwa jeestay ee diinta iskaga tegey iyadoo xaqu u caddaaday kadib maxaa saxa maxaa qaldan u garanaya maxaa aakhira ku anfacaya maxaan ku anfacayna waa garanaya isagoo garanaya ayuu haddana dhinac maraya kuwaa xaggay u dhaceen shayطaan baa qabsaday baa la yidhi kuwa wa amlaa lahum kaasaa amal u sameeyey rajogelin yididiilo gelin warkaan idiin soo koobee khafladan iyo amalkan tirada badan leh iyo dhibtan maxaa dawo ah dawadu waa koobantay kow ka koowaad waxa weeyaan aakhira xusuusteeda inaynu badinno geerida xasuusteeda inaynu badinno inay ku jiraan balaankeenna qorshaheenna inay ka mid noqdaan haddii inaad geeriyoonayso qorshahaaga aad ku darto oo ku xisaabtantid haddaad qorshahaaga ku dartid war berri haddaad aakhiro tagto caawa markaad seexanaysa haddaad tidhahdo war hadday caawaba kaa baxdo talo maxaad ilaahay la hortegaysaa haddaad xisaabtaada ku jirto dan awarenesska haddaad hesho in sha allah waad guulaysanaysa si awgeed baa ilahay wuxuu leey innahum yarawnahu baciida wanaraahu qariiba waa inaad qariib u aragtaa shayga kale nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi najaa أwalu hadihi اlأumma biاlyaqiini wالzuhd wayahlik aakhiru hadihi اlأumma biاlbukli wاlamal nebigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam xadiidkan xasanka ah ummaddan dadkeedii hore saxaabadii iyo dadkii wanaagsanaaye hore waxay ku badbaadeenoo ku guulaysteen bilyaqiin iyo wazuhd yaqiintu waa maxay waa xaqaaqidaad si dhaba u rumaysan tahay aakhiro iyo jannada iyo naarta iyo alla weynidiis iyo su-aaluu ku weydiin doono yaqiintaadoo dhisanta ka labaadna waa maxay azuhd zuhdigu waa adduunku aan qalbigaaga gelinuun saxaabada dad badanoo adduun soo galay baa jira oo gacantooda maray laakiin waxay ilaahay dartii u bixiyeen iyo waxay cidsiiyeen ka dhigay waa adduunku aan degin maxay zaahidnimadu maaha faqrinimo maaha inaad faqiirtay saxaabadu qaar waxaysta iyo qaar foqora iyo qaar waxba haysanba waa lahaayeen qaar fartay qaadaan baa ilaahay lacag midhan ka dhigay waa lahaayeen qaar iyagoo aan waxba haysanin dhintayna ama shahiidayna waa lahaayeen laakiin waxay isku raacsisnaayeen oo ay u lahaayeen zaahidiinba ka waxaystayna adduunka qalbigiisa kuma jirin kaan waxba haysanina inuu baaba'ayo dhibaata haysato adduunka uu goblamay ma haysanin saa awgeed buu nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam dadka hore waxa ay ku badbaadeen yaqiin iyo zuhdi dadka dambena waxay ku halaagsamayaan buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam bilbukhli waalamal bukhligu waa adduunka de markaad jeclaato waa kugu soo ururaya iyuu ku dhaafin waa gacantii go'day ama soomaalidu maxay tidhaahaa kelimadda soomaaliga ee dhab tahay waa dhabcaal waa qof hantida haysta oo aan rabin inay isaga dhaafto waa sifaadka qur-aanku uu ku tilmaamayo inay salaadu zuuliso xataa ilaahay muxuu leeyahy ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu الsharu jazuuca waidaa masahu اlkhayru manuuca ila almusaliin baa ilahay ka dambaysiiyey sifada dadka markay dhibtu qabsatana argagaxa
markay xoolaha helaanna iyagu isku kooba waa sifo aanay kuwa tukada lahayn baa ilaahay yidhi kuwa dhab salaadoodu tae salaad fiican ay tahay sifadaa ma laha baa ilahay ku tilmaamaya saa daraaddeed buu nebigu wuxuu ku tilmaamaya dadka dambe waxaa halaagi doonaa bakhaylnimo iyo amal rajo badanoo u qabo xadiidkii shadaad ibnu aws uu soo warinayey imaam tirmidi iyo ibnu maaja soo saareen sheekh alimaam annawowina riyaad saalixiin ku qoraya in kastoo uu alimaam alalbaniy tadciifiyo macnuhu laakiin waa un saxiix xataa haddaa nebiga loo nisbaynin calayh isalaatu wasalaam waxa uu tilmaamayaa alkayisu man daana nafsah wa camila lima bacda almowt fariidku kiyaasa caqli badanuhu waa ninka naftiisa xisaabiya ee u shaqaysta geerida waxa ka dambeeya raganimada iyo ninnimada iyo caqli badnida iyo wanaagga ninka ahi waa ninka xisaabtama ee u shaqaysta aakhira baa lagu tilmaamay waalcaajisu ka wax mataree leysigaahina waa man atbaca nafsahu hawaaha wa tamana cala allah waa ka naftiisu waxay doontaba iska yeela ee haddana dhanka kalena rajeeyey tamani ilaahay in sha allah waxba yeeli maayo rabbi waa naxariisan doonaa xaggana tamaniyaad buu ka wadaa xaggana waa maxay waa sii lumaya qur-aankana ilaahay wuxuu yidhi laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli اlkitaab man yacmal suuءan yujza bih ilaahay wuxuu yidhi war ammaanidiinna iyo ammaanida ahlukitaabka midnaba maaha man yacmal suuءan yujza bih ninkii xuma sameeya waa lagu abaalmarin dhanka kalena waman araada alaakhirata wasacaa laha sacyaha wa huwa mu'min faulaa'ika kaana sacyuhu mashkuura waman araada alaakhira ka aakhiro doonaya marka hore aakhiro doonis bay u baahantahy cid aakhiro doona aan adduunyo doon ahayn marka labaadna waxaa la yidhi wasacaa laha sacyaha u shaqaysta shaqaday u baahan tahay asacyu huwa alxaraka dhaqdhaqaaq ula yimaada baa la yidhi kow weliba dhaqdhaqaaq o dhan maahee waa sacyiha asacyi aladii yanfacu fi alaakhira la imanaya qofka sacyigaa sameeyo qura isagoo mu'mina fa ulaa'ika kaana sacyuhum mashkuura kuwa shaqadoodu kuwa looga abaalguda bay noqonayaan baa ilaahay yidhi mashkuurku yacnii waa looga abaalgudkooday helayaan ilaahay ba subxaanaه wa tacaala sacyigoodaasi aqbalaya ayuha alaxiba nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam isagoo rabo saxaabadiisa inuu tusiyo acmaasha adduunka ee aakhiro wax ka tartaa waxay tay ayuu wuxuu soo maray xabaal dabeetana saxaabadii la socday buu wuxuu yidhi man saaxibu hada alqabr xabaashan yaa ku jira waxay idhahdeen fulaan waa xabaashii hebel xabaal buu nebigu soo maray nebigu saxaabada xabaalaha dushooda wuu ku wacdiyi jiray suuqa baacmushtarka markay joogaan waa wacdiyi jiray masaajidka waa wacdiyi jiray meel walba innaga wacdigeennu dunida inta kaleo dhan intuu ka soo ururay buu wuxuu isugu soo ururay salaadda dabadeeda iyo masaajidka uun inta uun diintu in halkan lagu sheego ama adduunka intiisa kale waa la xoogsi tegey weeyaan nebigu calayh isalaatu wasalaam meel kasta uu marayo saxaabadiisa waxbuu sheegi jiray dabeetana xabaal buu soo dulmaro war xabaashan waa kuma buu yidhi waxay dhahan waa xabaashii hebel dabeetana nebigu isagoo saxaabada la hadlay wuxuu idhi ragcataani axabu ilaa haada min baqiyati dunyaakum kan maanta haddii wax la weydiin lahaa laba ragcadood ayuu adduunka haysataan oo dhan ka jeclaan lahaa innaga laba ragcadood adduunka may nagala qiimo badantah waa maya waxaynu is leenahay ragcadaha beri dambaad iska tukan doontaa horta xoolaad heshid laakiin nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kaa xabaasha ku jira maanta hadday wax weydiiyo laba ragcadood oo ilaahay u tukado ayaa agtiisa kaga fadli badana uu ka jecel yahay maxay saa'iri dunyaakum ragcataani axabu ilaa hada min baqiyati dunyaakum walidalik buu nebigu muxuu tilmaamayay ragcatay alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labada ragcadoodoo sunna ee la tukado salaada subax ayaa ka khayr badan baa la yidhi adduunka iyo inta saaranba intee buu balaankiisa ku jiraa markaa inaan labada ragcadooda salaada subax ka horeeya dhaafin oo labadii subaxaaba khatar ku jire labada sunna ka horeeya ka kaalaya labadii faralka ahaa ayaa khatar intayna badan kaga jira ayuha alaxiba
yaa laytanii waxba ma tarto. yaa laytanii layta waxa mustaxiilka ah ama wax helisteedu ay baciidulmanaal tahay baa lagu isticmaala af carabiga. yaa laytanii qadamtu lixayaatii aakhira haddaad tidhaahdo markaa waa mustaxiil, wakhtigii kaa dhammaa. yaa laytanii qadamtu lixayaatii rabbi irjicuun lacalii acmalu saalixan fii ma tarakt. doodahaasi way dhammaanayaan. maantaynu jaaniskii haysannaa. maanta dadka inta badani caafimaad qabtaa. maanta dadka inta badani waxay cunto haysataa. maanta dadka inta badani meelay seexato haysataa. adduun waa intaa ka badan maayo. aakhira markaa ma u xoogsanaynaa. adduunku in la sheegaya waa intaa uun. waa waxaad cunto inaad hesho, meelaad seexato inaad hesho, waxaad huwato inaad hesho. intaa haddaad hesho ka badan maayo. waxaynu ku kala gedisanay waa intaa nooceeda. inaad tidhahdo adna shaadha cudbiya baad sidataa, adna mid siliconaan sitaa ama mid silvera baan sitaa, inaad ku waranto waa intaan waxa inoo dhexeeya. laakiin labadeennaba shaarkii waa sidanaa. idan meel la seexdo iyo wax la cuno iyo wax la huwado adduunku ma dhaafo. sida awgeed intaanan laytanii odhanin yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllaha waltandur nafsu maa qadamat ligadin waاtaquu اllah in allaha khabiiru bima tacmaluun walaa takunuu kaladiina nasuu اllaha faansaahum anfusahum ulaa'ika hum اlfaasiquun. ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala, war kuwa iimaanka laga helayow alle cabsidiisa ogaada oo waltandur nafsu maa qadamat ligadin. nafi ha eegto berri maxay ugu tala gashay. ila waad dhimanaysaa ee berrita maxaad ku tala gashay. godkan yara aad ku socoto maxaad ugu tala gashay. waاtaquu اllaha in allaha khabiiru bima tacmaluun. ware la ka cabsada, ilaahay khabiir expert buu ku yihi waxaanaad samaynaysaan oo dhan. ilaahay qulubteennu daalacanaya. waxa dhabta aynu ku fekerayno iyo waxa dhabta aynu danaynayno iyo waxa dhabta aynu xiisaynayno u ogyihi. afka waa iska ducaynaa dee erayo af carabiga aynan garanaynba waxay yihiin. intaynu sacbada kor taagna waan idhaahnaa. laakiin maxaa qulubteenna ku jira rabbi subxaanah wa tacaala intaanay gaadhin markaa. walaa takunuu kaladiina nasuu llaha. ilaahay wuxuu leey waar ha la mid noqonina, ha noqonina sidii kuwii ilaahay ilaabay aan xisaabtaba ku darsanin. dabeetana rabbina maxay nasiyahu, ilaahayna uu ka tegey. kuwaasi waa kuwa faasiqiinta ah. low ana lii karatan faakuuna min almuxsiniin. intaan aakhiro la odhanin low ana lii kara, alla maan jeclaan lahaaye inaan yeesho noqosho oo faakuuna min almuxsiniin, kuwa wanaagsanaadaan ka mid noqon lahaa markaasi. haddaynu jaaniska haysanaa. si awgeed buu nebigu calayh الsalaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu ku odhan jiray akhiruu min dikri haadimi ladaat. akhiruu badiya xusidda ka macaanka gooye buu nebigu odhan jiray. ka macaanka gooye waa geerida. kaa xuskiisa iyo soo hadalqaadkiisa iyo ka warankiisa badiya si uu aakhiro wax idiin taro. warkaygu waxaan ku koobayaa, waxaynu nool lahay, waynu ku dhaqannoo la joognaa duni materialist ah. dad materialku qiimaha ugu weynuu joogo. dad xataa bini aadamku uu u kala qiimo badan yahay sida jeebkooda waraaqaha ku jira ay u kala badan yihiin. are you billionaire or millionaire, mise xoogsatada muruqmaalka ah baa tahay. dad uu ku qiimaysan inta jeebkooda lacag ku jirta. therefore qof kastaaba hadduu dadku la noolya kaayo wuxuu is leeyahay graedka sare ku bir, dabaqada sare, dabaqadan kaadixa a dhaaf, dabaqada shaqaalaha ka tallow, middle classka tag ama upper classka tag ama kor u sii soco. indha ku garaad laynoo isheenna intaasaa hor taalla. ilaahayna wuxuuna leeyahy wartan waa ka tegaysaan. waxaynu u baahanay markaa inaynu caqliga isticmaalno. caqliga inaynu isticmaalno.
ilahay wuxuu ku tilmaamay kuwa caqliga si fiican u isticmaala inaanay naarta gelaynin. kuwii naarta galay ilahay muxuu qur-aan ku sheegay fii suurati tabaarik. tabaarik maxaa lagu sheegay? low kunaa nasmacu aw nacqilu maa kunaa fii asxaabi saciir. haddaanu dhaguhu noo dalooli lahaayeen wax maqli lahayn ama aanu caqli lahaan lahayn bay leeyihin saciire maanta maanan galleen. innagu maanta haddaba jaaniskii baynu haysannaa, adduunkana waa joognaa, waana ognay inaynu geeriyeyna sugayso. wakhti aan durugsanaynuun qofba mar uunu bixi doono. waad og tahay in intii adiga wax ku ahay marka adeeradaa madhaan ee awowyadaa madhaan ee ayayaa madha eed adigu dadka waxu noqoto. maanta anigu dadkan waxu ahay, cid waxay ahay dunida ma joogto. yani markaad adigu dadka waxu noqoto ee dadkii wax ku ahaayoo dhan aad weydo, waxaad garanaysaa halkay kaaga horeeyaan. waxaad ogtay dadkao dham inuu halkanuun u socdo. dan waxay tahay inaynu wada diyaar garowno, waxay tahay inaynu aakhiro u diyaar garowno oo ugu diyaar garowno maxay? camal saalixa iyo iimaan dhaba. salى اllahuma calى nabiyina muxamadi wعalى alih وصaxbih وsلم والxamdu lilahi rabi اlcaalamiin.